dhaqankiyo gurtibaa u qaybsano xalliso qardofa jilcibkuna qadariyan allow haydin kala qumin qaatil haydin garab galo بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحناد السلام يا صحابتك وحلو المروة بيوتي أن كوكين ملك ستي جوكت جول كستي يوغوب كستي وحن ليهاي مالينتو هايدين وعناتو ومالين نمو صبح حرق halkan waxaan ku soo ritay digaag waa laba xilmo oo digaag ah insha Allah bismillaahi kariim biyo kulul ayaan ku soo shubi doonaa inaan ku maydho oo ku dhaqo ayaan rabaa dhowr qof ayaa waxay soo weydiin hilibka ama digaaga sideed u dhaqataa aan waxaan u dhaqdaa goor hore ayaan ka soo saaraa talaagada biyo kulul ayaan ku shubaa maraq milix ayaan ku daraa sidoo kale waxaan ku daraa khalka waxa la yiraahdo ma sha Allah milixda markaan ku daro sacab milixa ugu yaraan malqacad milixa waxaan ku daraa khalka tufaaxa waxaan u isticmaalaa inta badan sababtu waxay tahay isaga wax aarka loo yaayaan ku jirin waa natural khalkaas ayaan xoog u isticmaalaa labadaas ayaan ku dhigaa waan iska dhigaa muddo yaala saacad ama ka badan 2 saacadood wada ragtaan 2 saacadood kadib hadda waa kana hilibkeeni ma sha Allah tabarakallah ya soo diyaar garoobay soo maydhay nadiif ah hadda u baahan wixii lagu dari lahaa ee lagu udgoonkii xawaashkii hadana waxaan ku haystaa basal iyo maxaa la yiraahdaa basbaas qaji ma basbaas akhtar qof waliba sidoo u yaqaano basbaas akhtar kaan waxaan u isticmaali doonaa insha Allah ila arki doontaan iyo wixii aan ku dari doono waxaan ku dari doonaa halka waxaan ku haystaa sinjibiisha qoyan malqacad sinjibiisha qoyan ayaan ku dari doonaa اللهم صل على محمد waxaan ku shubayaa mashiinka wax lagu shiidayo isugu geenayaa waxaan ku dari doonaa waa mayonnaise malqacad mayonnaise inta markaan isku daro ma sha Allah mashiinka ayuu aadi doonaa waan isku soo shiidi doonaa markaan isku soo shiidiyo sidoo inoo soo baxan waan isla arki doonaa waxaan ku darayaa khal haddana mar labaad khal baan ku shiidi doonaa 2 malqacadood khalku dhadhanna wuu siiyaa wuxuu kale siiyaa inuu hilib ama digaag wuxuu doonaba ha hadlin hore markiiba ku bislaado oo uu ku diyaar garoobo sidoo kale liintuna iyaduna deydin ka warramay maayo liin waa wada naqaanaa tan Soomaalinahay ma sha Allah tabarakallah ilaahuna siisino siyaadi wad aragtaan intaas ayaan halka ku hayaa halka waxaan ku hayaa waa xawaashki qalala wuxuu ka kooban yahay waanu isla wadaagi doonaa wuxuu ka kooban yahay waa geed adari iyo huruud iyo xawaash masalaan isku daray taasina waa maraq digaag kaasina waa toon kaasina waa basbaaska cas ee leeyahay mamida Ethiopian weeyaan kan waxa looga talagalay digaaga xawaashaadka digaaga weeyaan waxaad ka heli kartaa Turkiga iyo Carabta meel kasta oo aad dukaamada Carabta ama Turkida ayaad ka heli kartaa aad ayuu isna dhadhan fiican u leeyahay tani waa toonta aan isticmaalay ay dukaan ayaad ka heli kartaa iyadana sidoo kale Allahumma salli ala Muhammad waxaan maleynayaa waa la yaabay asxaabta ku xiran maroo beauty soo dhawaada intii qalaleed ayaan ku daray hadda sidoo kale waxaan ku dari doonaa inta qoyan yaduna xawaashka qoyan ban isagana sidoo kale ugu dari doonaa innaba caadi ma noqon doono xawaashka qoyana ayaan hadda ku daray dhammaan halkaas ayaan isugu wada geeyay waa digaagii waa xawaashkii qalala waa kii qoyanaa halkaas aan isugu geeyay markii aan diyaariyay oo dhamaystirmay saxankii ayaan soo diyaariyay ma sha Allah saxankeena warqad ayaan soo kor saaray warqad waxa u fiican tahay
hilibka inaanu kaaga dhigin saxanka ama aanu kaa gubin aad ayay ugu fiican tahay. subaga iyo dufankay kaa haynaysaa. haddaanu hilibkaagu bilaa dufan yahay oo yahay hilib bilaa faad ah, waxay ku haynaysaa soos macaan oo dhanaan oo lagama sheekeeyaana. laakiin hadduu subaga ku bato dee maya anfac. asxaabteyda quruxda badan leh, waxaan idin leeyahay jananku waa janankiini, idinka halkaas soo gaarsiiya, hore u sii wada. asxaabta cusub ee igu soo biirtay waxaan leeyahay qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawaada. welcome Marwa Beauty. waxaad ka heli kartaan wax kasta u baahataan, wax walba waan idiin soo wadaa insha allah bidmillaahi kariim. waxyaaba badanaa ku faraxdaana tahdaan maasha allah ayaan idiin soo wadaa. isu diyaariya reer Marwo. intaa ka bacdi digaageenu sidaas ayuu dabka ku aadi doonaa haddii allahu idmo. markuu dabka kasoo baxana soo noqon doonaa. halkan waxaan ku haystaa waa khudrad, waa xabad basal ah, 2 xabo oo xabuuba oo barafka kasoo saaray, iyo mishiinkii yaraa. sidoo kale mishiinkan waxaan ku isticmaalaa, horeydin lama wadaagin, saambuuska basasha ayaan inta badan u isticmaalaa, ama khudradan basasha ku darsanaya saambuuska. mishiinkani alaabtad ku gurto daahir yaa shamis baan kugu odhi, waad ka ducaynaysaa. hawl fudayd baa la yidhaahdaa. dabkaama isticmaalayo, hawl badanoo saasahoo xooga kuma qabanaysid. waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada Marwa Beauty and Cooking. weydinkaasa waan ku gurayaa, waan isku soo noqon doonaa markaan isku soo shiido, isku soo hagaajiyo. insha allah waad ila arki doontaan sida ay usoo yaryaraato ama qurux u noqoto. waa ka heli doontaan alaab heersara ayay noqon doontaa insha allah, idina qancisa. waa si yar oo fudud oo simbal ah, laakiin si qurux badan u soo baxday, dhadhanna leh ayay kuu noqonaysaa maasha allah. waxaan rajaynayaa ina aada uga heli doontaan oo idin anfici doono. wax badan maaha, waqti badan kaama qaadanayo, waqti badan ma gelinaysid, hawl badan ma gelaysid, wax badan oo waqtiga kaama saameynayo. waa 1 iyo 2. laxabuubteeni waan soo dhilay, barafka ayaan kasoo saaray. markii horena waa ila arkayseen, haddana waan soo dhilay. saasaan 2 xabo uga dhigayaa. kabacdina mishiinka ayaan sidoo kale ku ridi doonaa. marka aan ku ridanaa insha allah waad ila arki doontaan sida soo baxo. waana isla soconaynaa. asxaabta subscribe-ka, like-ta, commentiga, share-ta ha ilaawina, waa xaggiina, waa noo dhiirigelin. waxaan ku waxba aadna kugu samaysanaysid, anigana qalbiga ayuu ii dhisayaa. like-tu masha allah lacag ma joogtaa asxaabay. commentiga sidoo kale daawashadu dirsanayay waa muhiim. basashii idinka laantiin abaar waaye asxaabteyda. xabuubtii oo yadaragtaa xabuubtii basashii iyo digirta cagaaran ama digirta cagaaran, intaas ayaan soo diyaarsaday. xabuubtii wadaragtaan saan soo shiiday, intaas ayaan soo diyaarsaday. haddii allahu idmo maasha allah tabaaraka allah. waxaas ii saaran sidoo kale dabka waxaa ii saaran saliid olive ah, wax yar oo saliid ah, iyo xabad toon ah oo aan xoqay, xabad toon ah waxaa ka dhex cadcadi. bacdina waxaan ku shubi doonaa basasha, saliidoo soo insha allah udgoon ayay u samaysaa. basasha ayaan ku dari doonaa haddii allahu idmo. marka basashiina waa niga soo cadaaday ayaynu soo noqon doonaa haddii allah awooda la yidhaahdo. intaas soo baxdana waa shiilaarki doonaa lacanto iyo ayaynu maasha allah inta kale qaybta kalena soo raaci doontaa haddii allahu idmo. waxaan idin leeyahay dhadhankeedana oo ka maqnaanina Marwa Beauty tijaabin doono, idin dhadhamin doona. jananku waa janankiini, soo dhawaada. aragtaan alaabo badan ayaa soo socota. asxaabteeda quruxda badan leh, hays martiyeenina kuraas soo qaata. si aan inaba jananka soo booqda caadi ahayn ayay isku soo bixi doonaan. jananku waa janankiini, waa janankii walaashiin. saxaabay waxaan idinka sugaaba waa garab istaag. ay usoo shaaxido basasha u yaryar hore way garab istaagteen. haddana waxaan rabaa halkaa halka sii sarreysa muuqanaysa hadhow bariis inaa noo sii horkacdaan. yaa
basashii wada aragtaan way casaatay basashii way soo casaatay waad aragtaan waxaan ku dari doonaa hadda oon diyaarinayaa waa xabubtii waxaan ku darayaa xabubtii masha Allah xabubtu aad ayay u yaryar tahay daciif tahay isku soo inta marka shiilmaan ama isku soo shaaxidaan wax yar ayaan ama isku soo bislaadaan intaasi sidoo kale wax badan intaas ku walaaqay isku dubjiro ku dari doonaa waan ku dari doonaa iyadana digirti cagaaray bitibowaaga ama digirti cagaaran ama digirta akhtarka ah qof walba siduu yaqaano intaas markaan isku daro halkan waxaan ku xawaashadkii oo aanan waxba ka reebin geedaadari iyo xamuun ku dari doonaa toon insha Allah digaag intaas وكاسة حنا حواشات كلفت كلنا hablo badan ayaa yiri xawaashaadka faraha badan leh micilin markay isku soo shiidan dadkeeda saddex wax oo simple uga soo dhigay waxay soo baxda aad macaan doona bariiska halka lagu kariyaa siino siyaadi intaan haysana si annakana macaan subscribe like comment iyo share to waa xaqiina soo dhawaada subscribe like minankiini waaye warlema la wada idinka jiranka halkaas soo gaarsii hore uga sii wada idinka reer marwo waxaan leeyahay muujiya qaybta viewska like commentiga shareta subscribe-ka dhannaba ay daahiday khudradii way shiilantay inaba caadin ilaawin qurux qiiq ayaa jira fiidiyo badan oo dadku intay daawadaan like-tuna yartahay viewskuna badan yahay qiiqa ku xiran waxaan rajeynayaa kulleyba ka qaaday lacag idinkuma joogo maasha Allah markaan isku soo wada ayaan ku soo daray hadda khudradii markay soo dilacantay hadalle maalawada bariiskan ku soo shubay waa miskiile soo baxday waan isku qalaynayaa muddo 3 daqiiqo ilaa 4 daqiiqo inta u dhaxaysa ayaan isku qalaynayaa marka way la arki doontaan isku shiilaya qof walba siduu yaqaano ama isku shaaxidinaya maasha Allah dhadhankiisu wuxuu noqdaa wareer dabkana aad ugu gaabisid waa kaasa ma markaan sidaa u diyaariyay dacsa kale waxaa ii saaran biyo kulul oo waa 1 2 3 biyaha kulul ayaan kusoo gamin doonaa qado isku daahay laakiin kama soo haro la shaaxidiyo hawl shiilo ma aha aad ayuu macaan yahay waniya tuya shiilista dhadhana leh masha Allah qofku ku adfar dhigtaan duqdi marwahay doono maxay ka soo tuurtay biyo kulul ayaan ku shubay biyaha aad ay u karkarayaan ayaan ku daray masha Allah 1 iyo 2 ayuu ku soo bislaanayaa daro bariiska si soo wada celceliyo harajeenaya inaad fiidiyoogan ka heli doontaan waxaan sameeynaa doono intaan si fiican wada walaaqo si wada geeyo daboolka ayaan u jeedi doonaa insha Allah dabkuna wuu u gaaban yahay kala ayaan sameeyaa joogaa idinkana waxaan fulba isaga yaqaan lambarka ugu gaaban video waxay isugu imaanayno assalaamu calaykum dhexdhexaadka warahmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah.